السلام عليكم. هلا وناكسن معنا وناكسن وقت والبا يكوتا وناكسن سولي وادا أصحابتا قعمة فرن قلبي فرن سولي وادا برتانا قد داونيسين برتانا كلنا يوتيوب كسكي مني مو سولي وادا فضلا هدانا وعصبتا مع كلنا سبسكرايب كنوصار هدا هرلو لجوكتني لايكتنا لو ذاك شيركا أصحابتا لو ذاك الله سبحانه وتعالى بإذن الله الكريم waxaan haynaa sheeko horta ragga Soomaaliyeed aad ay inta badan u isticmaalaan oo dhibaatada inay markii haweenka la arooso iyada walacayso ku soo xanuunsanaysaa uurkii la soo rafaadaysaa dhiig la'aan waxbay la soo maraysaa 9 bilood ka bacdi wax dhalaysaa xanuun kale maraysaa aw ragna ilmihii adiga sheeganay ilmihii uu leeyahay bari ku xumaan wala kala tagayaa markii caalafka dhamaado asiga laga yaabo inuu qaladkiisa ka imaado oo furo islaantii amba iyada haday doonto ka imaado wala kala tagay wuxuu rikaata u qaadanaa ilmihi ida loogeena amba ayay loogeena adiga rafaad ilmihi ku furayaan hooyadina rafaada lagu hayaa ilmaheeda inay u tagto lama ogolo xooga looga qaadanayaa war dhibaatooyinkaas Soomaalida aad ugu badan tahay mid ilmaheeda tuurto waa laga yaabaa hooyo ilmaheeda iska tuurto laakiin inta badan ma tuuraan ومر والبوا ما أركينا ويوم بدنا دبعتنا سكعبنا بل هذا أنت أنا نقوله وشيء قلقلين فاهمين تاس حالنا هاي نلا دعوة بإذن الله الكريم dhibaatooyin la geystay dartood oo ilmahayga laga qaaday koow ka tahay jirdil la geystay intaas oo igu sameeyay nin aan nolosha wadaagnay oo i guursaday ma fahanteen maxaa la yiraahdaa adii si kasto xuquuqdeeda ugu tuntay waxana hooyo xanuunsan wax siintu waa caawin ilaahay baa wax bixiya maxaa la yiraahdaa waan xanuunsanahay xanuun iyo waxaan la noolahay ma taqaana dhibaato uu ilinkaas ii geystay oo jirkayga ku taal ama laf dheer hayga oo laato ama maxaa la yiraahdaa mid dubaaqa ahaato ama mid ilmahayga hooyo ilmaheedii laga qaaday waad garanaysaan xanuunkay qabto iyo dhibtay dareemayso oo laga xanibay inta soo sano laga haysto ummadda Soomaaliyeed waxaad leedihiin dhiig waxaad leedihiin damiir waxaad leedihiin dad islaama waxaad leedihiin wax garad waxaan leenahay culimo ninkaas maanta hadii tol wax ka qaban karaan ama tol wax iiga qaban karaan halka ma soo fariisteen arintayda hadii tol wax ka qaban karaan maanta halka ma soo fariisteen ilmahayga hayso aabood baa tahay korso aniga ii ogol hooyana inaan arko ilmahaas ii ogol hooyana hooyo waa taqaanin dhibteeda ma fahanteen waxa weeye ayuu wixii igu sameeyay ilmihii waa ii diiday dhaar buu iiga maray si kasta waa u bariyay garta iyada isageedii hore xitaa labada reer way xalin waayeen cid u kala garnaqdana nasiib uma yeelan ninkaas maanta hadii tol wax ka qaban karaan ama tol wax iiga qaban karaan halka ma soo fariisteen arintayda hadii tol wax ka qaban karaan maanta halka ma soo fariisteen jirdil uu hore ugu geystay ayay la silcsan tahay waxay Muqdisho kula nooshahay cid ay qaraabo kor yihiin waa qof gacmo maran oo aanan awoodin in ay daawo u hesho boogada ku yaala ogadeeda dugta dhabarka iiga taalo walaalayaal mustaqbalkayga dhulku dhigay ilma hadii caloosheeda galaan inay igu meedaan iyo inuu maxaa la yiraahdaa la igu qalo ilmihii dame oo mutaana iiga dambeeyay waa igu meeday qoyskeeda waa reer miyi ku nool degmada Qardho ee gobolka Karkaar Puntland maqnaashaha caruurta ay la ilmeynayso waxa lagu hayaa magaalada Galkacyo caruurteedu waxaan kala maqanahay 6 sano waaye aan kala maqanahay sanadkan hadda bilowday ma ku jiro 6 sano hore waaye ma fahantay caruurtu waa 2 gabdhood labadayda gabdhood Nashaad iyo Umaymo 2 gabdhood weeye saas waa la ii diiday ilmahaas walaalkay saas ii galay dhibtaas igu sameeyay ummadda muslimka waxaan ka codsanayaa ilmahaas waa la ii diidaa mar walba waa la dhagxiyay waa dhibaatooyin inta badan inay dhacdo ay badan tahay hooyo cunugta laga qaaday hooyo 2 cunug laga qaaday hooyo 3 cunug laga qaaday hooyo cunug laga qaaday intee la geena su'aashaas jawaabteeda ilaa hadda ma hayo hooyo cunugeeda laga qaaday intee la geenaa
xaaladaas waxaan leenahay halaga baraarugnaado maxaa la yidhaahdaa siday ka cabanayso waxay leedahay ani ilmeyga dib inaa umadowlnaan jecel lahay maxaa la yidhahdaa qof allaal qofka iga caawi karto horta ilaahay ha kaa caawiyo bilaadan waa iska dhib badan yahay ilaah wax caawi ilaah ha kaa caawiyaan leenahay ilaah ha u sahlo hooyooyinka ilmaha ka maqan yihiin ilmahooda allah u sahlo aabooyinka ilma raadinaya ilmahooda allah u sahlaan leenahay dhammaan wixii muslim ilmaha ka maqan ilmahooda allah u sahlo waa dhibaato badan familadaas rag iyo dumarba dhib badan ay ku qabaan siiba khaasatan dumarka soomaaliyeed aaday ugu dhiban yihiin oo alla furay ilmiyaa laga qaatay waa la silcinaa ilmihii meel kale lagu silcina waa dhibaato war ilmaha hooyadooda wuxu dhaha ma lahan amba ha ku aqadaan amba ha ku agdhargaana waxaan leenahay cunuga hooyis joogo oo ag joogo waa qanacsan yahay mar walbo cunuga hooyis ag joogo waa qanacsan yahay insha allah biidni illahi kariim waxaan leenahay mar walbo xaqiiqda wixii aan aragno oo xaqiiqi inaan soo gudbin aan jecelnahay beentana aan ka fogaano soomaaliya waxaan leenahay caafimaadna allah insiiya dhammaantiin cudurkaana allah inga qaado videogan video ku xig intaa kusoo noqonayna insha allah biidni illahi kariim amaana allah idigoo caafimaad qabtiin iyo anagoo caafimaad qabno iyo isku soo naqad dambe insha allah biidni illahi kariim haddaan nagu cusubtaa waxaan ku leenahay fadlan subscribe-ka noo saar fadlan mar kale subscribe-ka noo saar walaal waa kaa codsanayna insha allah haddaa hore noola joogtana waxaan ku leenahay leegta iyo sheerka intaas baa la wadaaga asxaabtiina insha allah biidni illahi kariim maca salaamo